lagu tacadiyay inaan hal iyo laba ka iraado anoo ku hadlaya dhaqanka iyo afka dadka reer galmudug ilaahayna waxaan ka rajeynayaa waxaan ku hadlayaa inay noqdaan wax dalka iyo dadka iyo diinta wadan u ah ummadda midnimadeeda wada jirkeeda iyo walaalnimadeeda ka shaqeeya anigu dhaqan baan ahay dad badan oo waxa weeye Soomaaliyeed dad badan oo reer Koonfur Galbeedana ehel baan nahay dhaqan waxa weeye dhaqan baan nahay dhaqan wadaag baan nahay waxaanu ka shaqeynaa sidii ummadda loo midayn lahaa wax badan oo waxa weeye aynu ka xalnana way jireen waxaan rabaa inaan laba maadaba qiro marka hore waxaan rabaa inaan qiro dadka reer Koonfur Galbeed inay runtii yihiin dad Soomaaliyeed oo ahludiin oo muxtarimiin ah oo runtii ku wanaagsan dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta iyo martisoorka dad badan oo reer Soomaaliyeed iyo reer Galmudug iyo waxa weeye reer Banaadiraba ay ku dhex nool yihiin si wanaagsanna u sooray oo soo dhaweeyay inaan qarabaan rabaa walaalahay uuna mahad celiyo wixii sala dhacay runtii waxay ahaayeen wax ummadda Soomaaliyeed gaf ku ah ummadda reer Koonfur Galbeed lagu tacadiyay la dhibaateeyay dadkii waxa weeye isdhaxgalka bulshada iyo midnimada u yimid kubadda doonaya inay wax ka dheelaan runtii iyo dadkii taageerayay iyo budidiiba shalay in lagu tacadiyay la dhibaateeyay runtii aad baan uga xumahay shalay waxay ahayd runtii maalin taariikhi ah dhalinyaradii reer Koonfur Galbeed waxay runtii muujiyeen inay yihiin dad waxa weeye ummadda Soomaaliyeed haddii la aado aqoon diiniya iyo maadiba markii hore lagu garanayo inay runtii kaalmaha koowaad kaga jiraan marka la shalay waxay xaqiijiyeen runtii inay markii sportigii la aadana ay lambar 1 u yihiin kubad waxa weeye aad u qurxoon oo dadkii daawanayay ama waxa weeye dadka kale aan reer Koonfur Galbeed ahayn ama kuwa reer Koonfur Galbeed bay ku qanceen ummadda Soomaaliyeed dhan bay ciyaareen laakiin waxa weeye garin laba nin kama wada qosliday shalay waa laga guuleystay iyagoo ku qanacsan baa loogu daray waxa weeye in lala dagaalamo la aflagaadeeyo la dhibaateeyo anagu waxa weeye dad muslimiin ah baa inuu nahay dhaqan haddaanu nahana waxa weeye qofka muslimka waxa la yiri walaalka markuu gardaran yahay u heeli marka laga gardaran yahay u heeli markuu gardaran yahay waxaad ugu helinaysaa waxa weeye inaad tiraa walaalkay waad gardaran tahay ka joog marka laga gardaran yahay la dulminayana waxa la rabaa waxaad ugu helinaysaa inay noqdaan af iyo adin waxa weeye iyo maalba inaad ku difaacdo walaalahay iyo dadka aan dhaqankooda ka mid ah afkooda aan ku hadlay waxaan qirayaa inay shalay walaaladood ku tacadiyeen inay dhibaateeyeen inay dulmiyeen waxa ay ku sameeyeen ilaahay oo san raali ka ahayn diinta aan ku wanaagsanayn dhaqanka aan ku wanaagsanayn bil aadinimada aan ku wanaagsanayn dadkii ay wax ku gaareen ilaahay baan uga rajeynayaa inuu boogadhayo walaalahayna si guud baan runtii uga raali gelinayaa dadka reer Galmudug dadka reer Koonfurta Soomaaliya iyo gobolka Banaadir gaar ahaan beelaha habargeeda abgaale magaalada Muqdisho dega waxaan ugu baaqayaa ciyaarta Galmudug iyo gobolka Banaadir inaan la qaban in la joojiyo dhiig joojin in la sameeyo dadkii walaaladeena ahay shalay lagu tacadiyay in lagu baxo loo hoydo dulmigii iyo tacaddigii loo geystay waxa weeye ilaahay unbaa magafaahay in waxa weeye cabs laga weydiisto in walaalaheen loo tago dadkii shalay gaaray kontanka kuna dibadbaxayay walaalahood dhibaateeyana inay mar kale soo baxaan inay dibadbaxyo sameeyaan oo shacabkooda ay ku muujinayaan walaalahood ay ugu hoyanayaan gafkii iyo tacaddigii ay u geysteen ay ugu hoyanayaan ciidamadii dadka rasaaseeyay dhibaatada u geystana waxa la rabaa in waxa weeye ciqaabteedii ay maraan oo shariicada islaamka la waafajiyo inaan gardarro garab lagu siino aan loogu helin in waxa weeye shariicada islaamka ay maraan dhaqanka reer Galmudug dhaqanka gobolka Banaadir iyo beelaha Haweena waxaan ka codsanayaa waxaan dardaarayaa marka hore inaan ilaahay ka baqno inaan dulmi iskugu helin walaalahayn waxa weeye inaan ugu hoyano wixii shala dhacay inaan cafis weydiisano isbitaalada inaan ku booqano guryahooda inaan ugu tagno in waxa weeye marka aan ayna saamaxaan wixii dhacay aan ugu hoyano kadib in loo soo jeesto qabashada ciyaarta finaalka ee dowlad goboleedka Galmudug iyo gobolka Banaadir laakiin waxaan qabaa inaynan maanta dhici karin ciyaarta walaalahayn isbitaalada ayagoo ku jira inaan ciyaar la qaban karin oo aan la farxi karin waan qirayaa dadkeena inay ku xadgudbeen dadka walaalahooda inay ku tacadiyeen ilaahay baan ka rajeynayaa inay walaalahooda u hoydaan anigana anoo afkooda ku hadlay dhaqanka afkoodii waxaan leeyahay walaalayaal oo nacafiya waxay dhacaan waxaan diyaar
inaan cafisida ka weydiisano reer puntland lama dulmin reer jubbaland lama dulmin dadka la dulmiye lagu tacadiyey waa reer koonfur galbeed waa dad dhaqan iyo dhul wadaagii wax walba aan nahay waxaan leeyahay walaalayaal raalli ahaada dadka reer galmudug iyo reer koonfur waxa weeye reer gobolka banaadir iyo dhammaan beelaha hawiyana waxaan ka rajeynayaa inay idinkaga hoydaano dhalinyaradii maanta isbitaalada tagtay ee beelaha hawiye afkooda ku hadlayay walaaladood booqdana oo macalin cumar hogaaminayay waxaan leeyahay ilaahay idinka abaalmariya maalinka qiyaamo wax wanaagsan baad samaydeen kuwii reer koonfur galbeed ee markii loo tegay sida wanaagsan usoo dhaweeyana waxaan leeyahay astaantiinu waa martisoor iyo walaal jacayl waad ku suntan tihiin samir iyo waxa weeye wanaag fara badan baad ku suntan tihiin ilaahayna ha idinka abaalmariyo walaalahay iyo dadkan afkooda ku hadlaya dhaqankooda ka mid ahana anoo ugaas axmed ugaas cabdinuur ugaas cilmiya afar oday ugaas ka ah ilaahay baa ka rajeynaya inay walaalahood u hoydaano wixii dhacay cafiska weydiistaan waana mahadsantaha walaal aad baad mahadsantahay ugaas laakiin su-aalaan ku weydiinayaa sababta adiga kaga qabtay horta ugaas baa tahay waa run in ugaasaa tahay galmudug ka soo jeeda barnaamijyo horena waad igala qayb qaadatay gobolka banaadir arrintan si jeestaas uga hadlay odayaashii dhaqanku si wanaagsan ugumay hadlinoo iminkaad raaligelinta bixinaysaa maxaad markii arrintu dhacday aad raaligelinta u bixin weydeen oo arrintan dadkii dhibaatada sameeyey usoo qaban weydeen walaalow waxa weeye xalay 3:00 waxa weeye 9:00 fiidnimo Shabeelle baan la hadlay codkaygu wuu ku jiraa waa daawo kartaan Shabeelle news miya waa gartay صح kulmiyaan ka hadlay aniga kaliya ma hadlayna imaam Umar Macalin Abshir baa isagana hadlay oo si wada jira waxa weeye aan u wada hadalnay wixii dhacay waan ka tacsiyeynay dhaqanka kale reer galmudugna ilaahay baan ka rajeynayaa iyo gobolka banaadir been sidoo kale uga hadlaan waxa weeye annagu walaaladeen inaan dulmi u helin ma rabna bal waxaan diyaar u nahay dulmiga iyo tacadiga ay geysteen inaan walaaladeen reer koonfur galbeed cafiska weydiisano ما يوجد أحد بان كوسلام يعني أدو إذا الله كعبس بدن يدين بدن قرني عطاي ولا تكون مع صنطة هنا رهل قلين تنوع عصدرته بل يجان أيه دونا مركا يقولوا حكي هذا وأنا مع صنطة thank you السلام عليكم وأي كسوها وجاسك قلم ذوق ورنتي شاقين وإذا عندك هذلي أرنتنا ورهل قلين كبحيي لكن أرنتو حيوتها الله كونفور قلبات يجا أيام قرص الدبات